أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على نبي الله عبد الله رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم kulanti wanaagsan akhyaaray mar kale sida cabdiraxmaan oo idinle maalin wanaagsan iyo soo dhowaad hadduu ilaahay yidhaahdo akhyaaray waxa weeye horta beryahan updateaas ma samaynin qorshahana waxaan ku tala jiraa 2 sano kadib inaan social media oo dhan khadka ka baxo ama 2 sano ilaa 3 sano waxaan rabaa inaan baadiye iska dego hadduu ilaahay yidhaahdo khalaas kutubteeda halkaa geysto kolka waxaan hadduu ilaahay ku rooya maanta ka hadlaynaa dhammaystirkii yaajuuj iyo maajuuj 4 sano ka hor video aan sameeyey oo aan 10 jeer intaasoo jeer luqadda ingiriiska ku sharaxay soomaali ku sharaxay ayaa weli soomaali badan ka daadegi lahaa waayo dhibka soomaali haystaa waxay tahay 4 wadaad baa soomaali meel ku ootay koox yidhi wahabiyaan nahay oo salafi sheegtay salafi shaqo kuma lahan salafiga oo dadkii hore iyagu gadaal bay ka yimaadeen macnaha qaar baa hadda iska xanaaqi markaan saa dhaho anu gurubi waxaa beri baan kahay nebigu wuxu sal slam khursubaanka muslimiintu 7 firqe u kala bixi doonaan soo maa okay waxaanad aragtaan waa firqooyinkii ogaada qaar baa ku dhihi anagu ahlu sunnaa nahay qaadiriyaan nahay saanaan anu waxaasun beri baan kahay anu qof muslima waxaan ahay xaniifan mu'minan khalaas ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamadan cabduhu warasuuluhu intaasaa iga go'an qof muslina takfiiri kama dhigo gaal wey ma yidhaahdo qof muslimana saa ma yidhaahdo qofka aniga shahaata ee tawxiidka qabsada uu iga ammaan helay wuxuu qalbigiisa ugu jira ilaah baa iga og shaqadeena ma aha kolka anu firqooyinkii waxaa ma galo banaankan kahay waxaas oo dhan kolka khiyaaray waxa weeye waxaad maqasheen macnaha in badan videogii aan sameeyey 4 sano ka hor yaajuuj iyo maajuuj ayaa dad badan oo in badan oo akhyaaray soomaalidii ka mid ah crazy ka dhigay ama gebigooda dhanba ka waalay waayo waxaan way ku waasheen laakiin insha allahu tacaala maanta hadduu ilaahay yidhaahdo sharaxaad baan sharaxaynaa run ahaantii waxa ay yihiin yaajuuj iyo maajuuj iyo waktiga miyaa la sii daayey miyay joogaan waxaasoo dhan okay hadduu videogu ku dheera raalli aada waayo su-aashana naftigay waa iga waashay waagii beryaba markaan boggayga waagii berya ma fure laakiin dhowrkii beriba markaan sira messenger bal fiiri facebook andhehe youtube channelkaygan haddaan idinkala hadlayo maxaa cusub waayo anu dadka aad baan u ixtiraamaa fikradahooda kala duwan waan soo dhoweeyaa waan ixtiraamaa dadkaan u macaayo hadduu ilaahay ku idin rooyo maabiis gareeyo qabiil iyo waxaan aniga macno weyniima sameeyo aniga tawxiidka iyo shahaadada ayaa waxa ayaa macno intaas ay ugu filan aniga waa ilaahay quraanku wuxuu ku yiri subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuuna ikhwa dadka mu'miniinta ali rasuulkiisa rumeeyay waa walaalo kolka ani mu'min oo dhan ba walaalkaya hadee qabiilkuna macno weyniima sameeyo ogaada aniguna shakhsiyan waxaan ka soo jeedaa dhammaan beelaha Soomaaliyeed oo dhan ayaan ku abtirsadaa xag hooyo xag aabo kulli waxaas oo dhan kolkaan Soomaalida oo dhan Soomaali deegaal hal baan maqli jiray inkastoo dhaqan gaalnimada jiro oo hadduu ilaahay ku roon yahay say tahayba adigu dadkaan u takfiiri kama dhigo mana kala jecli waxay qalbigooda ku qarsadaan laakiin anigu waxa daahirkooda ay ka muuqdaan baan xukumaa kolka Soomaali oo dhan anigu walaal baan dhahaa intii afgaratay walaal baan yiraahdaa marka saas weeye marka arrintan yaajuuj maajuuj buddaan ka hadlayay waxyaabaha iga yaabay waxaa ka mid ah markaan dadka ajnabiga aan Soomaaliga ahayn u sharaxo inta badan luqadda ingiriiskan ku sharaxa YouTube-yada ay ku jirtaa meelo badan bay ku jirtaa podcast badan baa laga sameeyey dad badan baa iga waraystay way la yaabaan kumanaan baa daawata aad iyo aad ilaahay baa mahad leh ayay iga mahad celiyaan cilmi baarista ay research-gan sameeyay laakiin Soomaalida niyo ma ogtahay weligood sheekh Soomaaliya ama nin Soomaali aqoon-yahan oo cilmi baaris ama research sameeyay meen arag kolka waa la yaabayeen waxan nin waalan bay arkaan qaar baa dhigi jaahil baa tahay qaar baa dhisaas anigu jaahil ma yihi hadduu ilaahay ku rooyo 3 luqood baan ku hadlaa hadduu ilaahay idin rooyay waxaanay qofkii ugu horeeyay Soomaaliya ee qoray kitaabka la yiraahdo Soomaaliga Quraan ku jira oo idin sharaxaya luqadina Soomaaliga akhyari asalkeedu inay ka soo jeedo luqadda Carabiga cadeymo waaweyn waan idin keenay oo dabca 100% اللغة الصومالية أصول من العرب the Somali language is originated from Arabic language 100% 100% 100% soo xagarateen ma marka dhibaatada jirta dadka aqoonta leh hadduu la ku rooyay cilmi baaris sameeyo oo janalkan aad uga buuxa 85 waa ila jiraan hase yeeshee in kale oo iyagana waxaa jira ku xiran culimadan kale Soomaaliyeed oo dhahaya sheekh Abel ma dhihin aniga sheekh Abel uma shaqeeyo sheekh Abel shaqadeed ma aha nasiibka macnaha waxaad kala kulanto laakiin anu cilmi baaris baan ku siiyey waxaan idin sheegay ummadaha
markaan dadka tusay in dadka adduunyada maanta ku nool boqolkiiba ugu yaraan 70 ay yihiin yaajuuj iyo maajuuj madaxaa qarxay war waxaan madoobeen oo dhan yaajuuj iyo maajuuj uga shaki ma fahmaysaan ilaahayna subxaana wataala suurat alkaafi ku sheegay markii hadduu ilaahay ku roon yahay qoomkii alla wuxuu subxana wataala markii derbiga la jebiyo yowmaidin yamuuju macnaha way iskori doonaan yaajuuj iyo maajuuj iskoridda waa idiin sheegay waxa weeye boqortooya soo bixi doonta tii hore jebin haddana way tu kala iman marka waxaan doonayaa maanta dulmar inaan idiin sameeyo horta marka koobaad waxaad ogaateen yaajuuj iyo maajuuj jin ma aha malaa'igna ma aha wax baalal waaweyn iyo wax dhaga waaweyn iyo wax jin dhulka hoosta ku jiray waxaana ma aha okay waxaan doonayaa inaad baysiga ama aasaaska hoose ee hadduu ilaahay idiin rooyahay yaajuuj iyo maajuuj aad fahantaan haddaad aasaaska hoose fahantaan waxa kaloo dhan akhyaaray waa wax uu idin dhib yaraan wallaahi kolka yaajuuj iyo maajuuj waa laba qabiil ama laba jilib oo walaala oo uu dhalay wiilkii saddexaad ee nebi nuux calayhi salaam ee la oran jiray yaafis intaan misla qaadanay yaafis marka yuu dhalay yaafis wuxuu dhalay dadka caddaanka ah ee caucasian la yidhaahdo iyo dadka indhaha yar ee light skinka indha yarta cadcad sida shiinaha majoritigooda oo ah qabiilkan la yidhaahdo han waddanka shiinaha la yidhaahdo ma ogtihiin boqolkiiba 95 ku dhowaad waa hal qowmiyadood oo la yidhaahdo han Chinese inta kale waa qabiilo jirib waa qowmiyado yaryar qabiil ma aha qabiilku wuxuu ka hooseeyaa qowmiyadda filmadan Soomaaliyeed waa qowmiyad kadibna qabiil baan noqonaa kolka inta kale waa qowmiyado kale oo yaryar sida qowmiyadan muslimka la yiraahdo Uyghuriska ee gobolka Xinjiang degta saasoo kala ah waa ummado yaryar oo 3 milyan 5 milyan kuwa ugu badan baa 50 milyan khayr inta meel qaadateen iyo Kooriyaanka iyo hadduu la kuuro Vietnamese iyo Laoska indhayarta kale ee baroonka ah ama maarinka ah sida Indonesia Malaysia Burma qayb ka mid ah Thailand kuwa la dhaho Thailand iyo Burma waa walaalo iyo Malaysia Indonesia xagga diinta ma ahan macnaha iyaga waxa iska dhalay indhayarta cadcad iyo dadka hindida la oran jiray hindidu waa hindida madow ee la yiraahdo Dravidian ee koonfurta Hindiya degta ee Xamitig la yiraahdo waa dadkii hore waxayna walaalahaayeen ummadii Soomaalidu ka soo jeeday ee la oran jiray Punt inta misla qaadanay marka iyaga waxa dhalay Ham bin Nuux Ham iyo Sham waxay ku noolayeen dhulka jasiiratul Arab iyo dhulka area-daas bilmetel xadka Pakistan iyo hadduu la kuuro Afghanistan dhulka buuro ku yaala waxa la yiraahdaa Hindu Kush waa labadii wiil ee walaalaha ee uu dhalay Ham bin Nuux oo ah nabi Nuux wiilkiisa labaad khayr may garateen marka Kushna macnaha waxa la idinku yiri Ingiriiska taariikh waxay ku sheegaan Soomaalida iyo Oromada iyo badan Ethiopian kamid iyo dadkan Suudaan iyo dadkan Darfur degay iyo Chad iyo dadkan saaxil degay iyo dadka Kushitig la isku dhawo Soomaa afarta iyo saasoo maaha laakiin wiil saddexaad baa jira Punt la yiraahdo oo Soomaalidu badankeeda tahay laakiin waxaan Ingiriiska akhribay dadkiina Ingiriiska madax ka dhaqay waayo iyagina cilmi baaris ma samayn karaan ay leeyihiin wixii la yiraahdo ba iska qaadanayaan waana dhibaato kolka laakiin kuushka iyo hindiga walaalay ahaayeen alright soo Xasan hadda idin sheegay soo ma arag hindida iyo Soomaalida iyo dadkan Ethiopianka inaan la kala aqoon ee asalkoodii ba walaala dadka isku dhiganayda soo moogid physically ama their facial features ama qaabka dhismaha iyo midabka isu eegayay wajigooda dadka la isku soo qabto genetically DNA waxa lagu ogaaday inay hal ummad yihiin kolka ma kala duwana kolka labada ummadood hindu kuushka buuraha la dhahaa waana asalkoodii hore kolka dadkan yaajuuj iyo maajuuj oo dhaho waxay ka soo farcameen nabi nuux wiilkiisa saddexaad oo la yiraahdo yaafis carabiga ingiriiskan loo jaabeed okay marka maxay yihiin marka dadkani waa dad finna ku dhacday bilowgii hore dadkani waa in badan oo dadkan maanta boqolkiiba 90 dadkeenu u naqaano Caucasianka ama ugu yaraan boqolkiiba 85 dadka Caucasianka u naqaano waa dadkii ka soo farcameen labadan oday ee la kala oran jiray yaajuuj iyo maajuuj khayr inta misla qaadanay cadeymana waa intuu si doonaa okay marka dhibaatada Soomaalidu ka tahay oo idhahayaan macnaha quraanku ma sheegin horta marka koobaad quraanka Allah subhanahu wa ta'ala idin marnin yaajuuj maajuuj god baa lagu riday Allah wuxuu subhanahu wa ta'ala waxa laga yaajuuj iyo maajuuj iyagu waxay yiraahdeen waxa naga dhistaa iyagu waxay yiraahdeen macnaha nooga dhisbay yiraahdeen hadduu Ilaahay idin rooyahay nooga dhisbay yiraahdeen sadan waa idin sheegay waa meel xiran gabigeeda dhanba laakiin rahimahullahu dulqarnayn wuxuu yiri waxaan ka sameeynayaa redman okay kolka waxaan doonayaa redman inaad fahantaan
redman waxa weeye waa labadii buurood ee saas ahaa oo dhexdooda la dhisay marka alla ma dhihin subxaana watacaala god baa lagu xiray alla ma dhihin subxaana watacaala sir bay yihiin oo meel baa lagu qufulay fiiri waxaan doonayaa inaad fahantaan labadan ummadood laba buurood oo ay dhabarkooda deganaayeen ayaa laga xiray dhexdii baa laga ooday waa laga awday adduunyadana markaan dhaho soomaalida moogta juqraafiga iyo buurihii mountain range waxaas buurihii dhan waan bartay silsiladaha buurahoo dhan adduunyada qaar ba waxay dhihi ufaanaya ama mid baa wuxuu yidhi see ku suuragal ku tahay inuu sheekhan yaqaano luuqadaha war anigu kuma dhihin luuqadaha adduunkan aqaanaa subxaana allah war dadkan horta miyay waalan yihiin soomaalida intayna wax qorin miyayna wax akhriyin haddii hadda showgan aan ka hadlayo haddii aadan daawan bilow ilaa dhammayska seed ugu jawaabtaa macnaha waxaad ka jawaabayso waa inuu yahay waxaad fahantay ood kugu caddaatay oo aad xaqiiqsatay ood yaqiinsatay warbixintaas waxay ku saabsan tahay marka derbi saas ayaa laga dhisay waa horizontal barrier yaa ingiriiska yaqaana horizontal barrier ama derbi saa u jiifa oo dhinaca kale iyagu joogaan dhinaca sokona ummaddii laga xiray ay joogaan meesha keliya adduunyada waxaan idiin sheegay haddii laydinka xiro fiiriya sawirkan waxaan doonayaa sawirkan inaad aragtaan sawirkan baad aad iyo aad uga fahmi doontaan hadduu ilaahay idmo sawirkani waa wax aad u dhib yar meesha keliya waxaan rabaa inaan intuso haddii lagaa xiro macnaha in aadan maaragtay haddii meesha lagaa xiro inaadan meel kale u gudbi karin okay yacni meel kale uma gudbi kartid adduunyada okay akhyaaray meeshaan rabo inaan intuso waatan meeshan taariikhdana waan tusi doonaa meesha dulqarnayn uu ka sameeyey biyo xiraanka yajuuj oo maajuuj lagu ooday waa halkan waxaa la yidhaha dariel bas waxay ku taallaa xadka ruushka iyo georgia juqraafigeeda yaan marka hore idin tusayaa meeshani meesha ay tahay yaan doonayaa inaad fahantaan haddaad intaad fahantaan waa wax dhib waa meeshan bay ahayd halkan fiiri waan geli doonaa boqortooyadan khasaari la odhan jiray biyo xireenku halkanuu ku yaalay soo ma aragtaan meeshaan magacani ku qoran yahay okay halkan samkarash iyo samardar waa magaalooyinkii ay qolada khasaar ku noolaayeen kolka halkan weeyaan meeshan dhinacan derben baa la yidhaha waa badda caspian sea weeyaan halkani waxa weeye hadduu laadiin rooya hadda waxaa jooga azerbaijan alright halkanna waxaa jooga georgia dhexdana baddan tanna waa balaagsiiga halkanna waa turkiga hadda sawirkani waa boqolaal sano say ahaan jiray bisamkia fadhi jiray halkana bershiya laakiin hadda saas ma aha halkan khorasaan la yidhaahdo waa kazakhstan turkmenistan iyo waddamadaas weeyaan akheere meelo qaadateen marka meeshan dhexdaa weeye meesha laga dhisay yajuuju maajuujku kor bay joogeen ummaddanna hoos bay joogtay kani waa khulaafadii muslimiinta weeye sawir taariikhi weeye macnaha kolka dhexdaan bay ahayd dhexdan baa marka halkani waa badda caspian sea bidixdana waxa weeyaan hadduu ilaahay idiin rooyahay waa badda balaagsi dhexdoodan weeyaan dhulkani waa dhulkii nebi nuux calayhi salaam intuu soo dhibin wiilashiisii adduunyada u kala qaybiyey nimanka caddaanka iyo indhayarka dhulkana la siiyey halkan aad aragtaanna waa xadkooda wixii bariga ah waa indhayarta cadcad wixii galbeedka ana waa caddaanka caadiga yurubiyanka waana walaalo waa isku aabbo marka meeshan biyo xireenka meesha ka sameeyey dulqarnayn raximahullahu waa halkan soo waxa garateen maaha kor bay joogeen iyagii ummadda kalena hoos bay joogtay alright soo waxa garateen maaha kolka aan marka ku noqonno marka meeshii waa biyo xireenka ka sameeyey waa tan hadda waxaan tusay juqraafiyaddii waa mountain range buuro soo ma aragtaan halkan webi baa mare la yidhahda tareg river webiga tareg baa la yidhahdaa luuqaddani waa dadkii hanska ahaa ee meesha degi jiray kolka ummaddii deganaan jirtay buurahan akhyaaray dhinacooda kale ayaa la odhan jiray yajuuj iyo maajuuj hoostana waxaa deganaa dadkan georgianka la yidhaahdo soo wax garteen maaha 100% adduunyada ma jiro adduunka intaa leeg ma jiro meel haddii laba buurood dhexdooda haddii dhexda lagaa xiro dhinaca kale ummaddii joogta ayna soo badbaadi karin marka meeshan magod baa ka qodan yajuuj iyo maajuuj dhulka hoostiisa kuma jiraan yajuuj iyo maajuuj hadduu ilaahay idiin roo yahay dad meel ilaahay subxana watacaala ku xidha maaha webigan baa lagu xidhay waana laga sii daayey xadiiskana waa intusi doonaa waa inaad fahantaan hadduu ilaahay idiin roo yahay mucjisana ma aha yajuuj iyo maajuuj derbigaa mucjisaha iyagu mucjiso maaha waxaadna ogaataa yajuujka maajuujka maanta jira boqolkiiba hadduu ilaahay idiin roo yahay adigu percentage badan baa muslina
dad baa dhihi oh sheekhani wuu waashay suu ku dhahaa yajuuj maajuuj waa muslina okay easy tartiib fiirso dhegeyso shaydaan naclada ku dhacday soo moogid wiil uu dhalay wiil ka mid ah wiilasha shaydaanka inuu muslimay oo rasuulku yimi sallallahu alayhi wasallam uu uga sheekeeyey ilaa nebi nuux inuu joogay si qowmadii loo halaagay waxaasoo dhan soo ma taqaanaan wiil ka mid ah shaydaanka wiilashuu dhalay ee jinka ilan shaydaanku waa jinay inuu soo muslimay halkaas soo maaragtay ibliiska weynaa wiilkiisii baa soo muslimay kow soo moogid aala fircoon qoyskii fircoon inay islaantii haweeneyda ahayd aasiya la odhan jiray oo fircoon imraatiisa ahayd oo qur-aanka lagu sheego oo ilaahay tusaale uga soo qaaday muuminiinta inay iyaduna muslimid ahayd waa aali fircoon yaa xaaskii fircoon muslimad bay ahayd soo moogid meel baan u socda fiirsada waxaa kaloo lagu sheegay suurat alkaafir bilowgeeda in waqaala rajulun min ahli fircoona yaktumu iimaanahu nebi muuse markuu gaalka fircoona yidhi nebi muuse alayhi salaam waan dilayaa nin baa hadlay ka tirsan qoyskii aali fircoon oo iimaankiisa qarinayay soo ma aragtaan dadkii aali fircoon soo mee muslimin shaydaan soo hadduu ilaahay ku roon yahay wiiluu dhalima muslimin yajuuj iyo maajuujna waa ibni aadan okay waa ibni aadan boqolkiiba boqol gaalnimo laguma xukumin xaq bay u leeyihiin haddii ay diinta iyo tawxiidka rumeeyaan oo muslimaan inay muslimiin yihiin kolka hamoodina yajuuj iyo maajuuj oo dhan wax geysa dhaadheer oo weligood muslimiin dhulkoosa ku jiran yihiin may yajuuj iyo maajuujku waa ummad fidna lagu sameeyey kuwa fidnooba ee fidnadu watana waa kuwooda gaalada ah waana intus doona maanta kuwooda ugu xun marka meeshan marka ummaddii deganayd dhinaca kale ee yajuuj iyo maajuujka ahaa calaa sifada koowaad yajuuj lagu yaqaan inta soomaali comment soo qoraysa hal nin baan arkay hal qof baan arkay oo yidhi sheekhow nayto iyo waxani waa yajuuj iyo maajuuj waayo isagu wuxuu fahmay sifada ay leeyihiin yajuuj iyo maajuuj haddaad garato sifada ay leeyihiin yajuuj iyo maajuuj way kuu dhib yaraanaysaa inaad qeexdo waxay yihiin sifadaasina waxay tahay aayadda qur-aanka ay la yidhi subxaana watacala acuudu billahi min shaytaan rajiim ina yajuuja wamaajuuja mufsiduuna fi lardi yajuuj iyo maajuuj dhulkay fasaadiyaan maanta yaa fasaadka wada waa reer galbeedka waa kuwaan idin sheegay ee idin soo yajuuj iyo maajuuj inay yihiin soo maaha fasaadkaas muxuu yahay ereyga fasaadow maxaa tahay soomaali ma naqaanaa ereyga fasaad soomaali erey go-an ma lihin okay haddaad taqaanaan keena macnaheedu waxa weeye hana ku mashquulina waxyaalahan la weydiiyo ujeeddadu laakiin waxa weeyaan sida ereyga nacalad oo kale soomaali hal ereya ma lihin bilmatel carabiga nacam waa haa soo maaha af soomaaliga waa haa waa erey u dhigmaa soo ma aragtaan marka fasaad waxa weeye waa waxyaabaha la isku daray dil ummadda qoomadluud laga dhigo dadkoo la xasuuqo beeraha iyo irsiqa beeraha iyo hadduu la kuro zaraca oo la baabi'iyo webiyadoo la wasakheeyo pollutionka adduunyada dadkoo maaragtay carruurtoo la dilo carruurtoo la bedelo dhulkiioo la halleeyo caasinimo dumarkoo la qaawiyo marka aadin weydiiya yaa hadda waxaa wada yaa adduunyada waxaa ku wada soo galbeed ma soo galbeed ma galbeed wey soo ma galbeedka yaa xukuma yaa taqaan galbeedka waxaa xukuma qabiil ka mid a qabiiladii yajuuj iyo maajuuj oo muslimka 500 sano la dagaalamayay muslimku meeshan way tallaabi waayeen 500 sano yajuuj iyo maajuuj qabiilkii fadhiya halkan ayaa muslimka la dagaalamayay qarnigii 8aad bartamihiisii oo ku beegan rasuulka geeridiisii sallallahu alayhi wasallam 110 sano kadibna diinta yuhuudda ayay qaateen akheera meel garateen diinta yuhuudda markay qaateen qabiilkaasi hadduu ilaahay diin rooyahay waxa weeye waa qabiilka maanta Israa'iil fadhiya ee la yiraahdo Israa'iiliinta kuwa sheegtay ee la yiraahdo Khazaar iyaga halkan fadhiyay waxaan idin sheegay buug halkan buug la yiraahdo Jajuush Khazaari oo rajeynaya aan tuso ayaa lagu qoray in iyaga iyo goog turkis dadkii turkiga fiir turki bay ahaayeen dad turkiga okay iyo cadaan isku jira waa hal umadniyo fiiri Soomaalida iyo hindida madmadow miyaad kala garan kartaa qaarkood ma kala garan kartid ilaa wadlo Soomaalida iyo Itoobiyaanka miyaad kala garan kartaa in badan oo kamid ah ma kala garan kartid okay Soomaalida walaalihiin ay maaragtay reeshada ilaa ma jirid weynaa ama bantuuga kale ee Tanzania miyaad garan kartaa ilaa waa damaa isku yihiin maya marka iyagu saas oo kale weeye carabta miyaad kala garan kartaa inkastoo carabtan maanta ogaad carabta maanta joogta 70% waa turkiga dada inay cadiin Soomaali war waa yajuuj maajuuj masarta aad aragteen ee 100 milyan ee googa 17% kaliya ayaa caraba 3% waa masaaridii hore ee dhulka lahayd maxaa la isku dhaxal kala 20 Soomaa 80% waa Turkiyeeniyo waa turkiga cadaan ogaada taas waana yajuuj maajuuj 100% laakiin muslimiin oo li tawxiida okay waxa kale ogaataan carabta marka aan dhahay macnaha dadka halka degan waa dadka darbiga iyaga jabiyay waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam 3 sano ugu dambeysay nolosha rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa la jabiyay rasuulku marka muxuu ka yiri darbiga la jabiyay maalinka
fiirsada marka halkan fiirsada waxaan doonayaa hadduu ilaahay yidhaahdo inaan intuso ujeeddadaydu ma aha inaan dadka soomaalida muransan qanciyo laakiin waa in intii qanacsanayd aan caddaymo waaweyn siiyo intii hadduu ilaahay kuuraya shaki ku jirtana ay maqlaan waxay dhahaan iyaga u taallaa xadiiskan fiirsada okay xadiiskan waxaa soo warisay Zaynab binti Jaxsh oo ka mid ah ummatulmu'miniin ama hooyooyinkeenii ama xaas ka mid ah xaasaskii rasuulkeena sala allahu calayhi wasallam silsiladii dheereed kadib hadduu ilaahay idiin roo yahay waxay tiri macnaha rasuulka sal allahu alay wasallam ayaa kabcada dawaafayey oo saa ugu socday kabcaduu dawaafayey rasuulka sal allahu alay wasallam waa cimri u ahaa isaga oo isla markaana ku dawaafaya oo saaran hashiisii kadibna rasuulka sal allahu alay wasallam mar kasta oo uu gaaro kabcada geeskeeda rasuulka sal allahu alay wasallam wuxuu oranayay allahu akbar ayay tiri ayuu nebigu dhahay sal allahu alay wasallam kadibna markuu nebigu geeska gaaray ayaa wuxuu yidhi sal allahu alay wasallam allahu akbar ilaahay baa weyn maanta buu yidhi rasuulku sal allahu alay wasallam waa maalinkaas goormay ahayd taariikhda islaamka ku jirtaa siiratu rasuulka ku jirtaa sal allahu alay wasallam waa bishii dulqacda oo ahayd bishii dulqacda ee sanadkii 7 ee hijriyada waa heshiiskii xudayda hal sano kadib 2 sano kadib macnaha soo ma aragtaan kolka hadduu ilaahay ku ruuyo 2 sano kadib heshiiska xudayda ayay ahayd taariikhdan marka waa 7 hijriyada markay ahayd marka 7 hijriyada markay ahayd ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri laa ilaaha illa allah xadiiskan 8 jeer Bukhari ku jira Abdullah ibn Abbas baa wariyay cid kasta wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam laa ilaaha illa allah ويل للعرب من شر قد اقترب لا إله إلا الله إله ما إله كلام جري حق وعابد ويل للعرب عرب هلاك بوصفنا هذه من شر قد اقترب شرط صور واتقلية كد درتيد معناها كذب من الرسول صلى الله عليه وسلم مانتا ومالك وصلنا في تطبيق هذه الهجرية أو كبينيك بشي دلقعدة بشي دلقعدنا وبشي كويتون هذا المسلمين صو حجرتين معها أيام النبي صلى الله عليه وسلم مانتا يجوج ماجوج دربي ودلقرنين السمي حتى النبي إرجي واستعمالي أو قرآن كشيء redman iyaguna waxay dhaheen sadan uga sameey hore aan ku sharaxay labada ay waxay kala yihiin redmankii uu dulqarnayn sameeyay maanta wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo fartiisa iyo suulka isaaray inta ay leeg ayaa laga dalooliyay waa sanadkii 7 ee hijriyada akhiray waxa warkayga ma garateen sanadkii 7 ee hijriyada ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam yaa darbigii la dalooliyay kolka anoo isticmaalaya online software la yiraahdo calendar conversion fiiri waa kan idinku raadsada ayaan waxaan geliyay hadduu leeyahay kuri bishii dulqacda ee muslimka ku beegnaa sanadkii hijriyada taariikhdan caadiga ee English ama Europeanka ama Gregori ama miilaadiyada la yiraahdo Carabiga maxay ku beegnayd waxay ku beegnayd 629 kadib hadduu leeyahay ruu yahay 609 ayaan waxaan ka raadiyay hadduu leeyahay ruu yahay akhyaaray buugta taariikhda waxaan ka helay in qoladan la oran jiray Gogturk iyo qoladan kale ee la oran jiray Khazar in iyagoo wada socda in ay tijabiyeen darbigii uu dhisay hadduu la kureeyo dulqarnayn ayna ka soo gudbeen balidi Dariel Bass bay ka soo Dariel Bass waxa idin sheegay meesha labadan magac dhexdooda mara ee sawirkii hore in tusay haddaan ku noqdo meesha darbigan waxa la yiraahdaa Dariel Bass waa kan isagoon magacaan u sameeyay waa labadan buurood dhexdooda Yajuuj Majuuj xagga damay joogeen waana qowmiyadahan waa ka halkaas ka soo jabiyeen waqtigii nabiga ayaana la jabiyay rasuulkaana sheegay sallallahu alayhi wasallam in maalinkaas sanadkii 7 hijriyada oo ku beegnay bishii dulqacda ay inta jabiyeen kolka buugta taariikhdan ka raadiyay muddo igu qaadatay inaan ogaado 629 in wax maxaa dhacay darbigan meeshan marka haddaadan isku marka hore haddaadan fahmin in Yajuuj Majuuj meesha lagu xiray akhyaaray hadduu leeyahay inay ahayd webigan tareega meeshana Dariel Bass baa la yiraahdaa ama marinkii Dariusna waa boqor ka mid ah boqoradii Yajuuj Majuuj waa boqoradii ka mid ah boqoradii Persia waxaana dilay Yajuuj Majuuj dad badan ba waxay dhahaan Yajuuj dulqarnayn wuxuu ahaa Cyrus the king Persia ama Darius suuq noqday Darius iyaga dilay soo ma aragtaan waan helay kutubtan ka helay qofku ahaa dulqarnayn maalin kale in sharxi doonaa waxaad rumayn kartaana ma aha laakiin cadeymaan si doonaa kolka darbiga waa inaad fahmay marka markii ugu horeysay waxaan fahmay in meeshan ahayd way meel kale adduunyada fiiri horta qaaradda Afrika iyo iska ilo Soomaa macdaan baa degan qaaradda Afrika nabiga sallallahu alayhi wasallam Yajuuj Majuuj waxa ka soo jeeday wiilkiisa saxaada Yaafis taa macnaheedu waxay tahay Yaafisku xagee degaan waxay degaan waqooyiga adduunyada waqooyiga adduunka ayay degaan waqooyiga adduunka oo xagee waa dhulkii sare waa
koonfurta Yurub waqooyiga Asia iyo hadduu ilaahay kuu rooyay qaaradda Yurub oo dhinaca bariga intaasa ma garad way galbeedka Yurub waxaa ku tarsanaa berigaa deganaa waxaa deganaa dad kale oo sida Roomaanka iyo Griiga iyo dadkii hore ee Isbaanishkii hore oo la oran jiray Tarshish la oran jiray Isbaanishka gadaal ka yimid Ostrogoths iyo Visigoths baa la oran jiray waa Yajuuj Maajuuj dhamaantood halkan ay ka guureen waxaa intaa ummadood ee derbiga jabiyey waxaasoo dhanna waqtigii derbiga la dhisayey dadka degan Scythia la oran jiray so Scythian ma aragtaan in badii ay joogaan meeshii nimankii khasaarka la oran jiray ay deganaayeen oo Caspian Sea oo carabta buwaagta carabta loo yaqaano Bahr al-Ghazar badii khasaar soo ma aragtaan iyo Black Sea dadkana deganaa dadkani Scythia aad aragtaan waa ummadaha caddaanka oo dhan ee dunida jooga meesha ka soo farcameen caddaanka oo dhan ummadan ay ka farcameen waana dad qayb ka mid Yajuuj Maajuuj halkana waa Turkic tribes bilmatan luqadda Turkiga Indo-European kuma jirto soo luqadda Turkiga Indo-Europeanka waxa la isku yiraahdaa Romano ama Latinka waa taqaanaa Faransiiska Talyaaniga Isbaanishka Portugiiska iyo waddanka Romania la yiraahdo Germanic oo ah Scandinavianka oo Finland ku jirin hadduu la ku rooyay Ingiriiska Jarmalka Belgium waxaas waxa la isku dhahay Germanic Soomaa inkastoo Belgiumka ha France ku hadlo kuwa kale Slavic baa la dhahaa waa bariga Yurub oo ah Ruushka Poland hadduu la ku rooyay Ukraine Bulgaria dadka la ama Turkiga waa dad Turki ahaan jiray asalkoodii hore kolka kuwaana waxa la dhahaa Slavic Soomaa laakiin luqadda Turkiga uu ku hadlo Turkish language waxay ka mid tahay family language ka la yiraahdo Altay language-kuna luqadda ugu soo dhow hadda miyaa taqaanaa waa Mongolia iyo Koreanka halka misla qaadanay Soomaaliyiin walaaliyiin waxaan oo dhan halkan ay ka guuran iyagu kolka filmetina 200 sano ka hor Yahuudi jiri jirtay Ghazaarka ahaa intaysan Israa'iil aadin ama Yurub iman saana way kahay maaragtay inay dheerihiin waa kuwan 100% waa dadka halka deganaa Mountain Jews baa loo jiray Yahuudi buurleyda waa kuwan iyo waa dadkii Yajuuj Maajuujka Israa'iil bay degeen kolka waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa la sii daayay Yajuuj Maajuuj miinis ayaa derbiga la jibiyey marka la sii daayay ma aha inay boqol ku xiraayeen in korshaminta laga mariyay may labadii buuro tusay ee webiga dhex mariyay la yiraahdo tareeg ee la yiraahdo hadduu la yiro yahay Teriel Bass oo koonfurta Ruushka xadka Georgia halka ku taala buurahan waaweyn ee tusana magacood waxa la yiraahdaa Kasbek Mountain idinka baari kara soo moogid hatta waxa in soo galay video Ingiriisa oo nin sheekh Indonesian uu booqasho ku tagay oo si fiican u tagay oo hatta metal literature buu video uu weynaa inta kale ma awoodin inaan jarjaro hatta dhulkii baaray war waxan xadiidkii baa laga helay birtii baa laga helay wixii dhan baa la helay cadeymaa la helay irontii iyo naxaastii ama maartii uu ku shubay wixii oo dhan baa la helay marka maxaa dhacay marka maxaa la inooga qariyay intaan horta marka hore 99 baan waxaan akhriyay buugan uu ninkan Yahuudiga qoray la yiraahdo Arthur Kessler oo buugan waxa la yiraahdaa 13th tribe qabiilkii 13aad waa maxay qabiilka 13aad soo ilmo Yusuf ma taqaan ilma Yaqoob calayhi salaam soo 12 wiil ma ahayn Yusuf 12kii walaalka ahaa ee ceelka ku riday ka yaree walaalkii marka laga reebay yaraa 10kii kale soo isaga ceelku may ridin okay soo 12 ma aha 12kii wiil waxa ku darsamay qabiil kale ku darsamay uu ninkani leeyahay qoraaga waraadha may garateen qabiilka kalena muxuu yahay ee ku darsamay ya qabiilka kale ku darsamay wuxuu yahay waa dadkii caddaanka ahaa halkan xukumi jiray khasaari loo oran jiray khasaar baa loo oran jiray waa dad Turki iyo caddaan isku jiray ahaayeen waana meesha ay ka timid magac la yiraahdo Ashkenazi Jews Yahuudi Yurub waana 90% Yahuudda maanta jirta sida Netanyahu oo kale seen wuxuu ku sheegaa Soomaali aqliga ilaahiin ma qabo wallahi khayr raalli aadan codkayga rays gari ama kor u qaado dadka ma la yaabay banu Israa'iilkii caadiga ee hore carabta u eka waa baaba'een waxba ka in yar baa ka jirta waana sababta loo yiri subhanahu wa ta'ala aayada quraanka ahayd ilaahay bal fiirsada hatta quraanka ay ku jirtaa hatta ma fahmaysaan الله وحده سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسورة الأنبياء آية 9 وحرام على قرية وان كحرامني قرية كركيد أم وان كمنوع مقالو أهلكنا أن هلاقنيها قرية داس مقالا لهلاقي الله وحده سبحانه وتعالى وان كممنوعني أنهم لا يرجعون إن يدبوا صون غضان وبيت القدس قرية وبيت القدس أهل كيد الشيء يعني وبن إسرائيل وكوي رنتها سؤال الله سبحانه وتعالى ربنا إسرائيل صون نقول مايان وأنا كبتها إلا
إذا مركي أما وقتي فتحت يأجوج وماجوج إلا الله فرو يأجوج وماجوج قال الله سبحانه وتعالى وأن كم ممنوعني مقالة أنا هلقني وبيت القدس إني إيه كيدو كسو نقضان عقل ملهدين ما ركتان أوكي كدب الله سبحانه وتعالى وهم من كل حدب ينسلون يقو ميل كستكسو دقيا يأجوج وماجوج كي أوكي يعني ما أيضا محيطة مركا أيضا حوي كيف بني إسرائيل وأن كم ممنوعني مقالة دودي iyo qaryadii oo la haligay ee Baytulquds ahayd inay dib ugu soo noqdaan ilaa Yaajuuj iyo Maajuuj la soo celiyay macnaheedu waxa weeye Yaajuuj iyo Maajuuj baa iyaga soo celin doona oo hoolaanka keenid dhulkii barakaysnaayay Baytulquds keeni doona ma garatay marka wa kullin muhaddab yansilun kullin muhaddab yansilun waxa weeyaan ma aha inay baarshuud ku soo degayaan waxa weeye waqooyiga adduunyadu uu ka sarreeyaa bariga dhexe dhulkan hadda Caucasus kala dhooy deganaayeen iyo Yurubta ay ka imaanayaan biyaha koonfurta Yurub sida Caucasus Mountain iyo Georgia iyo Turkiga iyo Azerbaijan xagee biyaha ku soo shumaan Carabta xagga Suuriya iyo Palestine iyo dhulkan hadda Yuhuuddu qabsatay iyo Ciraaq bay ku soo shumaan markii way soo dhaadhacayaan way soo hoobanayaan Soomaaliya aanu niyo ma aqaaniyo Soomaalidu culimo ma lahan sababteena culimo lahayn waxa weeye marka maxaa loo qariyay hadaan ku noqon sababteena culimo u lahayn waxa weeyaan qoladan ma aragtay goob Turkiga oo dad Turkiga baahan Soomaaliya qarnigii 10aad ee miilaadiga ayay muslimiin waana tariyahoodiina loo oran jiray Seljuk Google gareeya Seljuk waa SELJUK qarnigii 10aad qarnigii 9aad dhamaadkeedii iyo miilaadiga ilaa qarnigii 10aad ayaa ninkan jaranaal wuxuu ahaa ka tirsan boqortooyadii Khazaariya waa uu soo muslimay alright wuxuuna ka tirsanaa nimankii Khazaarika ee Yahuudaan hadda intusay wiilashiisa horena waxaa la oran jiray Daawud iyo Muuse iyo Israa'iil waa dhif ama waa wax naadir ah inaad hesho Soomaali magaciisa ama Muslim magaciisa la yiraahdo Israa'iil sidaa darteed diinta Yahuuddu haystay bilowgii hore markuu soo muslimay wuxuuna ahaa isagu jarnaal ka tirsan boqortooyadii Yaajuuj iyo Maajuuj oran jiray Khazaarkana waxa hore u xukumi jiray way ka mid ahaa boqortooyadii la oran jiray Goog Turk halka markuu ninkani qabiilkiisa soo muslimay qabiilkiisana gadaal waxa la oran jiray Uguus Soomaa boqortooyadii Seljuk ay sameeyeen khulafadii bay qarnigii 12aad ayaa ay rogeen khulafadii bay inqilaabeen iyaga khulafa noqday kadibna waxay noqdeen hadduu ilaahay diin rooyahay boqortooyadii Seljuk kadib boqortooyadii Cusmaaniyiinta hadda dhow 919 ayaa la jebiyey 700 oo sano haddayna ka badnayn ayay muslimka haysteen warinta meel qaadateen kolka nimankani maadaama asalkoodu Turki yihiin dadkii darbiga jebiyeen ahaayeen laakiin ay muslimeen wax alla wixii xataa xadiista badan way qariyeen asalkooda nabiguna aad buu warramay Yaajuuj Maajuuj wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay leeyihiin tin guduudan oo ah Yurubiyaanka galbeed iyo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxay leeyihiin indha yar yar okay bala intuso dad indha yar yarna leh isla markaana tin guduudan yiriday waa intusaya waxaan doonayaa inaad fahantaan Yaajuuj iyo Maajuuj leedinku yiri dhulka hoostiisa ku jiraan waxba kama jiro Allah ma dhihin subxaanahu wa ta'ala dhul baa lagu xiray meel baa hoos baa lagu awday waa mucjiso meel baa ku asimay darbi baa loo sameeyay biyo wabi korkii laga sameeyay darbigiina waqtiga nabiga la jebiyay xadiisna waa tusay Yaajuuj iyo Maajuuj waa khiyaaray hadduu ilaahay diin rooyahay waxa weeye waa xadiiska nabiga suu ku yiri sallallahu alayhi wasallam waa cadaanka tinta guduudan iyo dadka indha yarka ah halka misla qaadanay kolka waxa weeye nimanka la yiraahdo Yaajuuj iyo Maajuuj waqtigii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa la sii daayay ay garato warkayga kolka markaan buugga akhriyay ninka Yahuudiga qoray ee uu leeyahay 13 taraayib ama qabiilkiisa 16aad yaan suuday qabiilkiisa 16aad bani Israa'iil sheegtay waayo hadda waa nimankan Khazaarka la dhaho waa nimanka Khazaarka la dhaho diinta Yahuudda qaatay alright may garatay warkayga marka waana cadaanka maanta jira waa iyaga suuratul A'raafna aayadu alla leeyahay subxaanahu wa ta'ala maaragtay wabacathnaa lahum aayad quraanka aayad niskeedu ahaa reer bani Israa'iil alla wuxuu subxaanahu wa ta'ala waxaan ku soo saari doonaa qolo xanuujisa oo dhibtay ilaa yawm al-qiyaamah waa Yaajuuj iyo Maajuujka u tageen iyaga ay ku biireen ayaa gumayn doona oo baabiin doona hoolaankan dhulkii barakaysanaan iyaga ku soo celiyay oo keenay iyagii baana baabiiyay iyagii baana haleeyay nimankan Yaajuuj iyo Maajuujkuna waa nimanka galbeedka haysta ee Ashkenazi Jews la dhaho bangiga Mareykanka dhexe iyaga leh euro iyaga leh war adduunka dhan iyaga haysta waana Yaajuuj iyo Maajuuj naytana way soo yihiin maadaama Ashkenazi dad maqashan ay waxay dhahay Ashkenazi baan nahay Soomaa Ashkenazi waa qayb kamid ah Yaajuuj iyo Maajuujka waana nimanka Noordiga ayay walaalayihiin Soomaaliga hadii jeer taliyaha NATO waa
German macnaha garabka siyaasadda NATO ninka xukuma waa inta badan Scandinavian-ka jarnaalka ugu sareeyana waa Mareykan ka ku xigaana waa Ingiriis ama Faransiis ama saas kale Soomaa okay waxani waa Yaajuuj Maajuuj isbahaystay waqtigoodii baana lagu jiraa adduunka daragtana 10ka nuclear-kana videoga Soomaalida madaxa qarxiyay 10 kuba waa Yaajuuj Maajuuj haba ku kala bataan bilmatalan Pakistan qabiil Pakistan iyo Hindiya Pakistan single oran jiray ka horna waxa la oran jiray macnaha waxa qabsaday dad oran jiray White Hanis dad oran jiray ayaa qabsaday iyagii Hindiya oo ka soo guuray haduu ilaahay diin rooyay Mongolia ka soo guureen okay waxaana waa iyagii waa Yaajuuj Maajuuj boqolkiiba boqol Soomaali laakiin ma daawan kartid khaysaarku waa kuwan dadkan ay ahaan jireen dagaalyahanka oo mucjisa waana kuwan hadda yuhuda jooga waana kuwa fasaadka wada waana kuwa haduu ilaahay diin rooyay quraanka lagu sheegay Allah la yiri subhanahu wa ta'ala in Yaajuuj Maajuuj mufsiduna fil ard nimankan Ingiriiska la dhaho hadda haduu la koron yahay iyaga khasaarkana walaalay ahaan jireen Ingiriiska dadka la dhaho iyo dadkii loo jiray Beertiya ama Beershiyankii hore walaalay ahaayeen okay dadkan kale Yahuudi ay khasaar lahaana walaalay ahaayeen hal ummad bay wada ahaan jireen dadkan hadda Ingiriiska sheegtana British ma hayagu waa kan meeshii ka soo guureen England Anglos waa kuwa English meeshu ka yimid koonfurta waxay ka soo guureen Denmark Jewsna waxay ka soo guureen waqooyiga Denmark Saxonisna waxay ka soo guureen wadanka Jarmalka la dhaho qarnigii 6aad nabiga sallallahu alayhi wasallam dhalashadiisii wax yar aad saas oo kala wax yar ka hor dhalashada nabiga sallallahu alayhi wasallam Britain bay qabsadeen okay qabiiladii la oran jiray Britain ama Britishka waxa ka haray in yar oo iskaadka dadka Scotland la yiraahdo Irishka iyo dadka Welsh la dhaho dadkii Celtic ahaa ee wadanka la way baabiyeen gaar ahaan dadkii Brits la oran jiray way butirtireen iyagana luqadoodii siiyay waana dhaqan ay leeyihiin Yaajuuj Maajuuj Faransiiskana waxa qabsaday qabiil kale oo Yaajuuj Maajuuj la oran jiray Frank dadkii joogay meesha Gauls baa la oran jiray General de Gaulle soo meedaan maqal way dhameeyeen wad magacoodii bay siiyeen nimankani meeshay tagaan haduu la ku rooyay magaceedii dhulkii bay qaataan iyaga qaata sawaan sida hadda kuwan khasaarkuna waa kuwa ugu daran bay ahaayeen haduu ilaahay rooyay oo diinta Yahuudda qaatay kadibna Israa'iil bay la baxeen waxba kama jiro waa European hatta DNA-dooda la sheegay 2009kiiba meel kasta ay taalay nimankan khasaarka la dhaho haduu ilaahay rooyay intoo majority-gooda intooda badan wax shaqo haba yaraatee kuma lahan bani Israa'iilkii hore waana sida ninka qoraaga sheegay hadda intusay yiri waa qabiilkii 13aad waa kan waa European diinta qaatay waa qolada Netanyahu aabihii baa magaca bedelay isagu meesha ku dhashay Falastiin ku dhashay Soomaa ama meesha hadda Israa'iil la baxeen laakiin aabihii baa yimid oo isagana magaca bedelay wuxuu la baxay Ben Zion Netanyahu baa la baxay Soomaa Netanyahu waa Hebrew name Soomaa laakiin Hebrew ka hor magacii la oran jiray ma taqaan waxa la oran jiray Makalowski okay waa Polish waa dadkii meeshan degi jiray aan intusay halkan ay degi jireen marka Yaajuuj Maajuuj dhagiina galiya sheekh idin sheegi kara ma jiro because dhamaantood waxa weeye Al Sacuud iyo Qatar iyo waxana ma galiya qoysaskan Carabta xukumana kuwan Qatarku way ka duwan yihiin kuwan iyagu waa Carabta asalka ahaa haduu laakiin waxana kale Al Sacuudka iyo Imaaraadka xukumay iyo Jordan iyo kan Jordan isagan xaga abu ka sheegta laakiin haday hooyadii cid ay soo hooyadii Koonfur beedniyo waxaan Carabta xukumo oo dhan waa Turkiga iyo Yahuud guursaday oo saasa marka wadaad Soomaali oo iyagu mushaar siiyaan oo lacag siiyaan miyuu wali ku sheegi may Yaajuuj Maajuuj marka sidoo kale qabiilka ugu soo oran jiray Seljuk sabay Usmaanin sabay oo asalkooda Yaajuuj Maajuuj ayaa muslimka ay todoba soqono waana nimankii Ibn Taymiyyah muslimka ciqaabi jiray okay sidoo kale Sheekh Ibn Kathir rahimahullah muxuu yiri markuu Yaajuuj Maajuuj ka hadlayay kitaabkiisii bilow ilaa dhamaadka wuxuu yiri Yaajuuj Maajuuj waa laba qabiil oo Turkiga fiiri soo ma aragtaan kolka Yaajuuj Maajuuj waqtiga nabiga la siiyay sallallahu alayhi wasallam waxaad maanta aragtaan oo dhan waxa weeye waa qabiiladii Yaajuuj Maajuujka soo ma aragtaan shakina kuma jiro waxa weeye nimanka Yahuudda ahaa saadooka kitaabkii Tawreed iyo kitaabkii Injiil ayay bedeleen oo Ilaahay Quraanka nagu sheegay kalimadii Quraanka ay bedeleen waxna soo ma laakiin kitaabka Quraanka lagu ka xiray subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu xaafidun Allah wuxuu subhanahu wa ta'ala inna annaga nuunka cariigu xalda anuun tacdiib waa isla weyni cid hadlaysana waa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri kitaabka alle annaga soo dejiyo annaga ilaalin Soomaa marka maadaama kitaabka alle iyo xadiista ay taaban karin maxay sameeyeen ma taqaan waxay sameeyeen tafsiirkii bay bedeleen culimo waxay keeneen aayadii niskeedii iyo wixii dhanka bedelaysa oo haduu la ku rooyay cidla ku qaadsiinaysa waana culimada ka qariyay taariikhda Yaajuuj iyo Maajuuj miyaad soo ogtiin akhyaaray in carabta in la nasakhay oo la bedelay maad ogtiin oo la bedelay gabigoodiba
maalin baan ka mid ah nebiga sallallahu alayhi wasallam ayaa isagoo masaajidka jooga ayuu maaragtay aayaddan hadda suuraddan idin akhri doono nebiga akhriyay sallallahu alayhi wasallam markaasay carab asxaabihi baa la yaabay oo yidhi ya rasuulallah carab yaan la nasakhi yaase lagu bedeli nebigu wuxuu yidhi waxaa laydinku bedeli doonaa salmaan alfarisi oo meeshu fadhiyey yuu yidhi kan dadkiisaa laydinku bedeli doonaa aayaddaasi maxay tahay marka aayaddaas waxa weeye fiirsada kitaabka qur-aankaan tegin doonaa waad yaabi doontaan waxaan wax idiin sharaxayaa ma jiro soomaaliyey waad lunteen culimo ma lihin wax inoo sheega ma lihin wallaahi wabillahi tallahi soomaaliya oo dhan waxa weeye waa baaba'san yihiin soomaaliya oo dhan aayadda ugu dambaysa suuratulmuxamed waana suuradda afar toddobaatanaad aayadda siddeetanaad soddon iyo sideed alla wuxu uri subxana wataala acuudu billahi min shaytaan rajiim haa antum haaulaa'i idinku muuminiintii waxaad muslimiintii waxaad tihiin haaulaa'i kuwan tadcuuna oo loogu yeedhayo litunfiquu fii sabiili illah si aad ugu bixisaan wax jidka ilaahay fa minkum alla wuxu uri subxana watacala waxaa idinka mid ah man yabkhalu qof bakayla bakayl af soomaali wax kale baad ku tiraa qudurna ogow hadda waa isla eriga carabiga qur'aana kitaabkii ku jiraa man yabkhalo qof bakaylaya alla wuxuu kuwa bakaylaya idinka mid alla wuxuu subxaana watacaala waman yabkhal hase yeeshee kuwii bakayla ee diida inay jidka ilahay wax u bixiyaan alla wuxuu subxana watacaala fainamaa yabkhalu can nafsihi ciddii bakaysha waxa uuna u bakayshay naftooda macnaha iyagunbaa bakaylay oo dhibaato uga iman ee ilaahay subxana watacala jidkiisa wax ma yeeli karaan allana wuxuu subxana watacaala wallahu ilaahayna alghaniyu waa kii qaniga ahaa wa antum idinkuna bini aadan ama muslimiinta lala hadlay ee la yidhi wax bixiyow wa antum idinkuna waxaad tihiin alfuqaraa'u kuwa fuqaraa sadaqa allahu alcadiim kolka bal fiirsada aydan alla wuxuu subxana watacaala wain tawallow haddaad jeesataan waa muslimiintii bakayle ee diiday inay jidka ilahi wax ku bixiyaan soo maa wain tawallow haddaad jeedsataan yastabdil ilaahay wuxuu idinku bedeli doonaa qoom ama qolo hayrakum aan idinka ahayn qolo aan idinka ahayn yaa laydinku bedeli doonaa waa carabtii markaad joogtay soo ma ahayn humma markaa kadibna laa yakunuu amhaalakum kadibna idinkoo kale ma noqon doonaan bakayliina idinkoo kaleoo bakayliina ma noqon doonaan kolka yaa lagu bedelay carabtii waqti okay kheere waa kan waxaan doonayaa halkan inaan wax intuso waxaa idin sheegay in nebigu sal ly slam aayaddaas markay soo degtay asxaabi weydiiyen yidhahdeen yaa ay dhaheen yaa rasuulallah yaana lagu bedelaya sal allahu alay wasalam uu yidhi kan iyo qoomkiisa farisi baa meesha joogay asxaabiga loodhan jiray salmaan alfarisi nebigu wuxu sal slam salmaan alfarisi qoomkiisa lagu bedelay soo maha fiirsada hadalka nebiga suu sax u yahay okay nebigu hadalku nebigu soo ama dhihin sal ly slam fiirsada xadiista nebiga yaa inoo ururiyey mayaa taqaanaa albukhaari yaa ururiye ma taqaanaa albukhaari waxaa ururiyey ninka la odhan jiray allah u naxariiste maxamed ibnu ismaaciil albukhaari yuu ahaa uzbekistan waa bershiyan turkig iyo bershiyan isku jir uu ahaa si in lagu bedelay soomali xadiiskeena lamber one ninkii noo sameeyey waa bershiyan iyo uzbekistan bukhaari ka labaad saxiixeena waa sunnigeena ya shiicadu waxay leeyihin xadiistooda ka labaad ee muslimiinta muslim ma taqaana isagana waxaa la yidhaahdaa abu alxusein muslim ibn alxijaaj ibn muslim ibn waraad alqushayri alnaysabur isagana yuu ahaa bershiyan iran xadiiska nebiga soo maarig sal alay slam uu yidhi asxaabtii ku yidhi kan iyo qoomkiisa oo salmaan farisi baa laidinku bedeli doonaa carab waa la nasaqay soomaaliduna waa qayb ka mid a carabtaas ogaada nasaqaadaasayna ku jiraan madaxdoodo dhan sooma arag inay iska daba meeraysano oo ayna heshiin karin waa dad nasaqan ilaa kitaabka ilaah usoo noqdaanna waxba uma hagaagiyo kitaabka alle unbaa daaweyn karaa laakiin maba doonayaan kitaabka ilaahay fiirsa markaya sheekha saddexaad ee tirmidi soo ma aha sunnaheena fiirsa isagana tirmidi waxaa ma loodhan jiray magaciisa isagana maxamed ibn ciisa ibn sawra ibn muusa ibn al taxdaad al-sulami al-tirmidi isagana xaguu ka yimid wuxuu ka yimid magaalada la yidhaahdo tirmidi ee ku taalla haddadan la joogo ku taalla koonfurta uzbekistan isaga iyo albukhaari iyo tirmidi isku waddan dhul bay ka yimaadeen soo ma aragtaan sow saddex ma aha xadiista soo ma aragtid xadiiska nebigu soo sax u yahay fiiri cilmigan oo kalaan hayaani moogtahay weligaa sheekh soomaaliya ka maqli maysid culimmadeenna oo dhan waa bershiyan ama uzbekistan oo turkiga
beershiya turkigana waxay isku yihiin sida oromadii soomaalida oo kale soomaad maqal macnaha oromo badan oo waxaa jirta asalkoodu soomaali yahay oo ilaa 2 milyan ku dhow ama soomaali badan oo asalkoodu oromo yahay dad saas ku dhexgala weeyaan okay fiirso turkigiina madax bay noqdeen oo seljuug iyo cusmaaniyiinta ayay sameeyeen khulafadii dhan bay qabteen mamluuk kuwii jabiyey Genghis Khan ama tataarkii ku xajabiyey soo turki ma ahayn soo hal ummad asalkiisu ma sheegin turkiga iyo dadka tataarka walaal bay ahaan jireen mongolia ka soo wada guureen way luqadda turkiga waxaa la yidhaahdaa altaic language baa la yidhahdaa macnaha luqadaha marka classification loo sameeyo la israacinayo waa hal ummadniyo hal ummad weeyaan soo soomaalidii oromadii iyo canfartii lama dhaho hal luqad oo hal habeen marka kor loo sii qaadana carabtay sicigaan oo afroasiatic baa la yidhaahdaa horena waxaa la odhan jiray xamito semitic okay turkiga saas wey marka labadan ummadood turkiga iyo beershiyaanka oo carabtii lagu bedelay sida aayadda quraanka sheegtay in la bedeli doono alla yiri subxaanahu wa tacaala nabiguna uu yiri sallallahu alayhi wasallam waxa la isku bedeli doonaa Salman Farisi dadkiisa Salman Farisina uu ahaa beershiyaan ama farisi carabiga laakiin farisiga iyo turkiga waan idin sheegay hal ummad bay ahaan jireen oo saddex galay soo maaha kolka meedaan arag macnaha labadii ummadood qolna boqorradii bay noqotay 700 oo sano qoladii kalena cilmigii diintii bay qaateen yaa cilmigii diinta qaatay waa qaybtii beershiyaanka ogoona usbeega luqadoodu waa haaf turki haafna waa hadduu ilaahay idin roo yahay persian family language bay ka tirsan tahay khayray soo ma aragtaan kolka macnaha tirmidhi saasuu ahaa abu daawuudna yuu ahaa marka fiirsada abu daawuud waxaa la odhan jiray abu daawuud sulaymaan ibna al-casharaat ibna isxaaq al-casdi al-sijistani isagana yuu ahaa bershiyan ama iiraan oo baadha idinku waxaana idiin sheegaa iska qaadanina maskaxdiina ku socda bal soo baadha idinkuba okay sheekha saddexaad ee kutubta inoo qoray hadduu ilaahay idiin roo yahay waxa weeye annisaa'i weeyaan fiiriya annisaa'ina yuu ahaa waxaa la odhan jiray annisaa'i abu cabdiraxmaan axmed ibna shucayb ibna cali ibna sinaan ibna baxar ibna dinaar al-khurasani waa bariga iiraan iyo afghanistan meel iska galaan dhulkii barakaysan nebigu sal slam uu yidhi baytulquds waxaa xorayn doona muslimka badbaadin doona ciidamo ka imaan doona calanka madow wata ee ka imaanaya khurasaan kuwaan hadda maahayaa kuwaan hadda dajaal baa wata maaha kuwii runta ahaa halkay ka imaan doona marka isagana soo ma aragtid fiiri waa nisaa'i waa xadiistii oo dhan kuwa ururiyey okay yani soo ma aragtaan soo hadda hadduu ilaahay idiin roo yahay khiyaaray maaragtay yani idinma tusin maaragtay in dadkii muslimka ahaa macnaha hadduu ilaahay idiin roo yahay khiyaaray in carabti la nasakhay oo lagu bedelay farisi ama bershiyan iyo turki intaa keliya ma aha cilmigiina may dhaxlin iyo xadiistii nebiga sal alay slam iyo sayniskii waxaas oo dhan iyo boqortooyadii oo hadduu ilaa hadda waad ogtahay turkigu inuu suuriya wax ka baabiiyey carabtii wax yar buu ingiriis ka xoreeyey haddana soo ma aragtaan macnaha taa keliya ma aha waxaa kaloo tahay carabtii gebigeediiba 80% waa la jaray carabtii qurayshta la odhan jiray iyo carabtii caadiga ahayd way kala carareen waa la baabiiyey maxaa dhacay turki baa qabsaday waxaan hadda carabaad aragtaan waa turkiguna iyo farisiyiinta qaybo badan oo ka mid ah sida boqortooyadii bertia iyo boqortooyadii bersia oo magaca ka wataan asalkoodu waa qabiil ka mid a qabiiladii yajuuj majuuj oo muslimay marka waxa weeye ninkii saynisyahanka ahaa ee bershiyan farisiga ahaa hadda qaar baa markaan ka sheekeeyaan dhaho bukhaari farisi buu ahaa hadduu la ku roon yahay tirmidi annisaa'i hadduu la ku rooyay daawudi kulli warniga aanu soomaalida qaar baa waxay dhihi kana mashiica mase war shiica shaqa kuma leh anugu nin ahlu tawxiid aan ahay ilaahay rasuulkiisa rumeeyey beri baan kahay waxa anugu shiicadu waa kuwa yidhi khulafaa rashiidinta abubakar iyo cumar iyo cismaan khulafo ma aha ani iyaga khulafadayda taas koobaad baaban ku kala tagnayba wax kale oo naga dhexeeya ma jiro ma garatay iyagu ay khulafadii ku fidnoobeen moogta iyaga sida ay qolada nasaaradu nebi ciise ugu fidnoobeen oo been uga sheegeen kolka beri baan ka ahan shiiciyo waxaas qof muslim aan ahay kolka ninkii saas ahaa ibn sina la odhan jiray ibn sina la odhan jiray saynisyahankaaba wuxuu yidhi waxyaabaha iga yaabiya waxaa ka mid uu yidhi waa farisi buu hayaa wuxuu yidhi adduunyada dadkii caqliga badnaay oo dhan waa gaalo iriya waa because waayo way isla weynaadeen kibir iyo qooq baa qaaday okay waa waxaan European waxaan joogay Soomaa dadkii high IQ ahaa waa wada gaalo dadkii wuxuu yidhi iska caadiga ahaa ma caqliga fiican aan lahayn sida Soomaalida oo kale ama dadka Afrikaanka oo kale qaarad qani bay degan yihiin waa taajiriin wax walbay haystaan haddana iyaga baa isdilaya soo moogid Soomaali oo dhan adduunyada joogta laba gobol baa ku filan ay degaan
haddana si way isdili dhul ay ka dhimayaan bay isku baabiyeen beli dhoweyd midug soo meedaan maqlayn 2 bilood ka hor in everest ka dhigeen macnaha dhinaca daaroodka dhinaca wiyaha iyo dhinaca dirta inay everest ka dhigeen by the way macnaha ereyga dir carabigu ka yimid duriya la socda eri Soomaaligeena oo dhan asalkiisu carabi markii Soomaaligeena dhulkiis ku dhameeyeen maanta Oromay u soo wadaan Ethiopian bay isku rabaan inay dhulka yimaadaan marka siyaasiyiinta Soomaalida oo dhan ummado kale u shaqeeyaan waxaana la doonayaa in Soomaali la tirtiro saasa marka dadka aqlaaqska ayaa saasa laakiin tawxiidka diinta ay haystaan halkay baran lahaayeen qabiilii qurun bay ku jeedaan culimo wanaagsan ma lahan culimadooduna culimo fikirta ma aha waa culimo diintii ka dooratay lacag waa cabdi diinaar ku wardho hadda shaqo mulo kale waa dogtiin waa ganacsado weyn magaalada Nairobi marka nin ganacsi iyo taajir iyo maalqabeen ama diintii yeelay wuxuu ka sheekeen Yaajuuj Maajuuj waqtiga nabiga la sii daayay maya kuwan businesska la leeyahay lacagaha la leeyahay wax la wadaagayo Yaajuuj Maajuuj muslim sheeganayaan oo reero fidna kolka khiyaar iga daama doonayna khilaafka waxa galo dadkan waa iga amaan hela haduu muslim yahay laakiin waqti Yaajuuj Maajuuj waxa la sii daayay waqtigii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam haddaadan rumaynayn waxaan ka codsanayaa inaadan comment dambe ii qorin oo cayya ama saas oo kala waayo aqliga caruurta ayaa leedahay qofkii arintan ay ka dhaadhici weydo caruurna waa sababta loo sameeyay 12 sano oo dugsiga inay dhigtaan iskoolka caadiga 12 sano afar hoosa afar dhaxay afar sara 12 sano Soomaa si ilmahan maskaxda soo kordhiyo marka waqti dheer baad u baahan tahay in lagu baro oo joogtid boggeyga ma furaan doono haduu leeyahay 2 sano kadib waxaan doonayaa waxaan inaan ka lugeeyo social media telefoonkayga iska xiro haduu ilaahay ku rooyahay inaan ka lugeeyaan rabaa noloshan caadiga ah dhan ciyaalkaygu man sugayay intay qaan gaarayaan oo 18 gaarayaan ama isku filaanayaan intay yar hadda afar baan u malaynaa hadda inay yar tahay oo 18 sano ka yariin markii afartaas weynaadaan oo gabdho waaweyn rag waaweyn noqdaan bas baadiyaan rabaa inaan taga aniga aabahayna Allah u naxariistay imaamka cadan buu ahaan jiray dagaalka labaad adduunyada wuxuu dhalay anaa ugu dambeeyay 5 caruur dhalay anigu kaygu yaraabaan ahaa 70 iyo dhowr sano iyo sheekhu ugu dhalay magara turkiga kolka aabahay magaalo joog jiray cadan buu ka soo galay jaamacadda al-Azhar buu ka baxay luqadda carabiga uu gabi jiray saas oo kale reer cilmigu waa aabihiina sheekh buu 9 sheekh weeyaan marka odaygii baadiyu iska tagay waayo waxa sheekh laga sheegay Allah u naxariistay aabahay inuu yiri baakhiru samaan aniguna hadda waxaan arkaa akhru samaan waliba IT-gan anu aad u bartay waan idinka sheekeeyay daabadil ardiga Allah quraan ku sheegay subhanahu wa ta'ala waa AI-ga waa artificial intelligence maalin ka mid dadka la hadli doontaan dadka la hadli doonaan markii gaalnimadii buuxsanto oo culimadii oo dhan cirbad lagu dhameeyo maadugtiin in hadda culimada dhan ee vaccine wada qaadatay ay dhiman doonaan war 10 sano kadib sheekh ma jiri doonan iyo aniguna 10 sano kadib haduu ilaahay dambaadiyayga joogaa kolka khiyaaray walaaladii Soomaaliyeed oo raalli ahaada intay dhibtay haddana ereyga iraahdo wali aan cabskan jeclahay Allahna quraanka subhanahu wa ta'ala rasuulkeena wuxuu ku yiri khudul afwa afska qaado in badan baa iska kacaydaniyo waxay u caayaan garan maayo وحاول كموت العقم مويدين وحمويدين علم بلاش أنا صوب بندقي وإلهي وجوجي والله إن نسميه سيدي باستجي قاعد سيدي وجوه بونه عند عدم وسوق بالله ما قرأت ورقيقة أو إنسان وحن خلطنا عن نفي شيطان باي وحن سحنا الله سبحانه وتعالى سبحانه كل كنين أدونك إلهية وكيري ورعبتها قادن واصني وردونك يجوج مجوج بالجوجا يا هايستا والسيدة وقت النبي حديث كوكاني آية كوكاني كيري سيستمكي دجال ودجيي دجال وقفيا سيستم maaha shakhsiga dajal isaga waxan dajiyay ayaa gadaalka xukumaya waxan oo bilmithil nabiga sallallahu alayhi wasallam waqtiga dajal calaamada ugu weyn lagu garan doono waxa weey waa ribada soo moogid maanta $10 hadaad deensatay adduunyada bangiyada muslimka ee Sacuudiga imaaraadka kulli inuu riba la socdo waa waqtigii ribada riba la'aan ma noolaan kartid meel kastay ku jiraan guri bay ku jiraan gaari bay ku jiraan lacag qaadan ويجوج ماجوج سمارة يمكن يهودا نيش يكسر كذا خسارة هاي فيري يهودا يا أوتك تقرن الحاد النبي عيسى دلشين سكور مركب النبي صلى الله عليه وسلم يجا يا أوتك هدول يكونوا يجوج ماجوج أو دين توجي وحين وجي كتاب حن ويجب سميسته ولا تعلمودك وأنا صوبت يجوج ماجوج كإسرائيل جوجا رايد وينجي إكستريم جاود هندك عندي لذلك كان كتاب كهيستان والسيتانيك تعلمت بالها وأنا كتاب إنه الشيطان يهلو شيء سورة البقرة سورة البقرة وجرا ولا سبحانه وتعالى نبي سليمان عليه السلام قالوا بي يا واحد قالوا بي شيطان مدي سحر كبري اوكي سحر كلام ملك بسوتش لكن يجو ديسكليمر بيسوين جيرين اما وحورين جيرين ددو waxana ku gaaloobiin iska jira laakiin kuwa yahuudaha iyo shaydaamada way qaateen buug bayna sameysteen shaydaana waana buuga yahuuda loogu waana buuga yahuudu u geysay qoladii khasaarka ee turkiga cadaanka ah oo iyagu hilibka dadka cuni jiraba marka koor waana yajuuj maajuuj maantana wixii iyaga wada fasaadkii kolka khiyaaray
فيديو ما يرد إرادي وحوي يجي ماجوج وقت النبي قال سيداي وقت النبي قال سيداي وقت النبي قال سيداي كل كوستكم جيران معجزة معها أن راع اللي يري النبي عيسى وقت عيسى لسوديني حمودنا قال له سبحانه حديثك وحديث قلتك والله سبحانه وتعالى nebi ciise ku oran doono waxaan soo deenayaa addoommo ka mid addoommadayda oon cid iska celin karin addoommadayda muslimiinta nebi ciisow uu alla yidhi subxana watacaala buurta la kor duurka falastiin ku taalla macnaheedu waxa weeye war waa raaca dambe ee imaan doona nimankana raac bay u socdaan labadii boqol ee sano iyo boqolkii sanaba raac iyagaa yimaada marka raaca ugu dambeeya weeye kuwa nebi ciise soo weerari doona cilmigeygisaan qiyaasana waa shiinaha waayo dagaalka saddexaad shiinuhu iyaga ayaa jebin doona galbeedka Yurub Mareykanka Ingiriiska Faransiiska Jarmalka dambas baa laga dhigi doonaa because ujeedaduna waxay tahay in Beetul Quds noqoto caasimada adduunyada shiinuhuna quwad military noqdo ummadaha kalena laga takhasuso wadanka yar ee Israa'iil ay moodeen inuu ordayo waa fidno waa dajaal carabiga waxaan muslimiina tamar ma yeelan doonaan ilaa mahdiga soo baxo waxaan waa fidno waqti fidna lagu jiraa wallahi wa billahi tallahi waqti fidna lagu jiraa hadda ninkii kan Joolaan oo Soomaaliya aqalka cad buu tagay awal hore hays buu ahaan jiray waxa soo ahaan jiray fiiri shaatigiisa la soo baxay soo in maalmihii Suuriya yimid meel kasta lagu qoray waa yeesalku waa yuudi waa oo la yiri macnaha Joolaani waa Goolaani weeyaan waa Goolan Haydniyo waxa mar raba inaan ka hadlayaa Soomaalidu aqli ma lahan war meeshan adduunyada fidna taagan waa lagu kala tagay culimo maliin waxa maliin waxa inoo sheegay maliin Soomaaliya waa la nagatay dad la ganacsaday baan nahay hadduu la ku rooyay ganacsade iyo madax iyo sheekh culimo waxaasuna lacag diinaar bay doorteen waana cabdi diinaarka nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam wallahi wa billahi wa akhir zaman hadaadan rumayn hadii iska sug nasiibka kolka marka la daan ku celiyo yajuuju maajuuju waqti nabiga la siiyay sallallahu alayhi wasallam dhulka hoostina kuma jiraan allana ma dhin subhanahu wa ta'ala dhulka hoostina ku jiraan meel bay ku jiraan allah wuxuu subhanahu wa ta'ala radman baa loo ayaa laga dhisay radmankuna waa xaweey waa darbi saas u dhisan waana la jabiyay waqti nabiga sallallahu alayhi wasallam adduunyadana iyaga haysta إلا يوم القيامة كده عيانا يجا هيسن دون سنة لما تك سورة الكافي قصة يجوج ماجوج والله سبحانه وتعالى وشيكي كلك هذا المسكح الهين هذا تاريخ الهين أنا وحنا قرين أنت صبوا لا تسنى بالي I'm convinced 100% بقول وحنا عنه إن يجوج ماجوج يعني الجوجان دويد يوروبيان كان عدان كان يندير فن شينا يعني صعود دنا ويجي تقال كوبا يجا إزدلي تقال خلادنا يجا إزدلي كسدحان يجا إزدلي الدويد هذه يسكو هنجبية يسكو هنجبية طبعا كقبيل قوميدو أنا ده هو يجوج ماجوج دولة أفريقيا بجرتها أو رجال بدو هنجبي سو إذا ما له هو حاله أنك هين سود أفريقيا يجونا أيضا كي لورنجر بورس داج كها إنجليش كل سنة لبضو دنا ويجوج ماجوج جرمانيك ترايب كوردن يوروب ويجوج ماجوج أمريكا ويا إيران هافبا كل وغوي كوريا هدول كل شيء فرانسيسكا نيشة قبيل كفرنكا قبصدي إنجليز كي واحد أنجلو ساكسن كقبصدي روسكا قبيل لورنجري روس oo ka yimid wadankan Sweden ruushkii hore cadaanka ah blue eyes ka Sweden bay ka yimaadeen waa Viking waana Yajuuj Maajuuj Viking ruuxa ka timid Phrygian oo ah Viking macnaheedu waa Yajuuj Maajuujkii hore war waxaan oo dhan waa iyagii waqtigoodii baa la joogaa waqtigii nabiga la sii daayay waxba kama jiro dhulka hoos ku jiraan waa mucjisi waxa ma dad geesa dhaadheer ma dad ilka dhaadheer ma dad biciila ma waa bilaad inagoo kala waana dadkan cadaanka ee adduunyada xukuma Trump baa kamid doonaysa Yajuuj Maajuuj aragto waa Trump waa madaxweynaha Shiinaha waana Netanyahu waa Putin war waxaan oo dhan waa iyaga nimayo marka Soomaaliyeey waa in salaamay su'aasha ayaan lagu soo celin qofkii qanci waayo iska u qanac kii kale ee qancow khayr ajir Allah ka siiyo waxaan rajeynayaa commentigiin waxaad baratay qoro su'aalahana hay ugu badanina oo bilaa macnaha dadka doonaya inaan su'aalo badan u sheego bogeyga Yusuf emailkayga ku jira emailkayga ku taagtaagso laakiin halkan inta badan saa uma fiiriyo khayr waan salaamay ajaladana waan dheereeyay qofkii hadii la guuraan waqti wayn laba jeer ama saddex jeer kala daawo waa in salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa Sayyid Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Sheekh Yusuf oo idin leh assalaamu calaykum